guul hadda sharafteeda rabta reer galmudug ha guuleystaan waxa yeelay waa la kala buunbuunso og yahay baasha magaalada iyo dhan baa ruxantay waxaan isiri makoobkii bay qaadeen talo maxay tahay meel aan fadhiyay odayaal waaweyn baa isahayn waayay oo bakoorada watay baa samadaha galay isla ruxantay waxa shaax la daadiyay maqaaxidii miis si daba gadoomaya kursi dhinac ka jabay si faniinaya anigii baa yaabay dad hadda waaweyn odayaal bidaar loo koofida inta ka dhacday aan ogeyn iska durdurinaya taageerayaashii galmudug ee degmooyinka dhan inta iskaga yimid istaadiyo muqdisho iska xaadiriyay saaka 4 saac iyagoo qadadoodii maanta ay cuni lahaayeen hore u wata oo diyaarsan waxa weeye kii sonkor qabay kaniiniga sokorta uu soo qaatay si aan macaanku ugu kicin kii dhiikar qabay dawadiisa hore u soo qaatay juhdigii iyo dadaalkii aad bixisay kuba idna khasaarin waxaan idin leeyahay hambaliyo tan kaleeto guul hadda sharafteeda rabta reer galmudug ha guuleystaan waxa yeelay waa la kala buunbuunso og yahay baasha magaalada iyo dhan baa ruxantay waxaan isiri makoobkii bay qaadeen talo maxay tahay meel aan fadhiyay odayaal waaweyn baa isahayn waayay oo bakoorada watay baa samadaha galay isla ruxantay waxa shaax la daadiyay maqaaxidii miis si daba gadoomaya kursi dhinac ka jabay si faniinaya anigii baa yaabay dad hadda waaweyn odayaal bidaar loo koofida inta ka dhacday aan ogeyn iska durdurinaya ugu dambeyn reer galmudug hambaliyo waad guuleysateen banaadirna waa ka aarsateen taageerayaashii saaka 4 saac ka hor iska xaadiriyay istaadiyo muqdisho iyagoo qadadii maanta ay cuni lahaayeen baca ku wata iyo tag away kululeysooyin ma aanay ku khasaarin tan kaleeto reer galmudug waxay ka aarsadeen banaadir sanadkii hore ciil bay u qabeeno iyaga ka badiyo koobkana ka qaaday hadda sanadka waa gambaray inta u dhigteen bay ka takhaluseeno labada gacmood bay isku geeyeen banaadir haddaad naga badiso waa waxa hawriyan kadib guushu sideedaba haddii ay meel u socoto cidna ay u qoran tahay laga maleexin karo si walbo la yeelo dhalinyarada banaadir matalaysa waxa lacaga la siiyey ee lagu laaluushay guusha inay keenaan ee saq dhexe iyo xilli horeba lala dardaarmay ee waxa weeyaan balqaadyo waaweyn loo sameeyey wixii oo dhan everyway dhagaxyadiina ku laabta banooni ma taqaanaan iska taga bay galmudug waxaasoo dhan waxba ka shaqay waayeeno nimankii galmudug maanta garoonka iyaga looga kala baxa marka reer galmudug haddii ay kuuriyaan yaqaaneen iyo sida xabadda loo rido kubadiina waa ku darsadeen waada naga yaabiyeenba sanadkii horena final bay tageen oo koobka iyaga laga qaaday haddana waa ay joogaan ugu dambeyn marka reer galmudug haddii ay kuuriyaan yaqaaneen iyo sida xabadda loo rido kubadiina waa ay barteen sanadkii horena waad ogeydeen koobka iyaga laga qaaday haddana final bay joogaan oo koobka inay inta qaadaan degmooyinkoodii geystaan ee waxa weeye ay halkaa ugu dabaaldegaan kaliya ha u hartay sugayaan hadda ogaado guusha naftirkeeduna waxay ku fiican tahay qof baasha ku xarakeey yaqaano guusha macnaheedu yaqaano inuu guuleysto laakiin hadday shibshib noqoto intaad guuleysato aduurkaaga iska marto aada baasha ku faani aqoon aada fantasiyo aqoon everway guushaasi waa guul khasaarta wey hadda banaadir meeshay koobkii dhowaa ka qaadeen haddii galmudug ka qaadi lahaayeen dabaaldegiisa iyo fahankiisa iyo faataabaqlihiisu hadduu soo gaari lahaa laakiinse galmudug sanadka waa dardar leedahay ciyaar in looga qaado ma ogola haddayba rigoorayaashii baratay sanadkii hore ay iska soo adkeeyeen nimankaas waa niman aan waxa weeye ciyaar lagu loodi karin weeye marka reer galmudug waxaan leeyahay hambalyo meel fiican baa timideen insha Allah guushuna cidii ilaahay ugu talagalay ku dambeysaan ogaan doonaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh